kulankan oo dhalinyaro hal qof oday meesha ma fadhiyo dhalinyaradana kulligeen muhiimadaasna waxay tahay in qof dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo wadankan dibadiisa u aaday inuu wax barto kaliya waxbarashada aan waqti gelin laakiin haddana ka shaqeeyo extracurricular activities oo ah in mujtamac uu markaas ka soo jeedo ama uu matalayo uu maaragtay matalo oo yani wax u qabto asagoo wax lacag lagu siineen marka runtii taas waxay u baahan tahay marka dhiirigelin qof 8 sano maaragtay wax baranaaye marka uu wax baranaayana dantiisa waxbarashada marka laga soo gudbo dhalinyaradii kale iyo ardayda Soomaaliyeed kale meesha uu wax ku baranayo inuu caawiyo la shaqeeyo maaragtay ayaga iyo safaaradda maaragtay matalaysay uu isku xiro runtii waa dareemi kartiin inay tahay mas'uuliyad gaar ah oo saaray taas macnaheedu waxay tahay marka la shukr ala waajib muwaadinka Soomaaliyeed loo baahan yahay inuu magaca Soomaaliyeed iyo maaragtay sharafta Soomaaliyeed ilaaliyo laakiin haddana in mas'uuliyadaas qofku uu dareemo waa wax garasho Ilaahay bixiyo waaye muhiimadda kulanka marka waxay tahay Maxamed Cabdullaahi Xasan oo arday Malaysia u aaday inuu wax barta ah waxa uu maaragtay qayb ka noqday in arday Soomaaliyeed ee dalkaas ku nool caqabado badan iyo duruufo badan iyo maaragtay dhibaato badan ee la kulmi lahaayeen inuu maaragtay qayb ka qaato si loo xal lahaa